Ciyaartoyda naadiyada iyo sidoo kale macallimiinta tenniska dheer ayaa soo dhaweyn ballaaran maanta waxay u sameeyeen Gudoomiye Saacid iyo sidoo kale Gudoomiye ku-xigeenka tenniska Cali Gare waxaana soo dhaweyntan lagu sameeyay degmada Shibis waxaana ka soo qayb galay soona abaabulay macallimiinta iyo ciyaartoyda waxaana qayb ka ahaa soo dhaweynta soo qaban qaabiyay Macallin Abuukar iyo sidoo kale Macallin Maxamuud Macallin Cabdiraxmaan iyo sidoo kale Macallin Mahdi waxaana ka soo qayb galay dhammaan naadiyada ciyaartoyda u diiwaan gashan xiriirka tenniska dheer waxaana soo dhaweyntan loogu sameeyay Gudoomiye ku-xigeenka iyo Gudoomiyaha oo dalka dib ugu soo laabtay kuwaas oo arrimo shaqo ay ku maqnaayeen soo dhaweyntan ayaa waxaa kaga mahadceliyay labada gudoomiye markaasi xiriirka tenniska dheer iyagoona kaga mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyay bahda tenniska oo isku jira waxayna sheegeen in ay horumarin doonaan ciyaaraha kala duwan waxaana la sii ambaqaadi doonaa shaqooyinka adag horyaala xiriirka tenniska dheer iyagoona horey u qabtay tartamo kala duwan oo markaasi qaarkood kooxaha ku guuleysteen sidoo kale tartamo caalami oo ay ka qayb galeen qaaradaha kala duwan ayaa markaasi ay qayb ka ahayeen waxaana hadda ku howlan yihiin sidii ay u horumarin lahaayeen ciyaaraha tenniska iyo sidoo kale tartamada dhawaan la qaban doono soo dhaweyntan ayaa hore waxaa loogu sameeyay Maamul Sumayma iyo sidoo kale Macallin Cabdiraxmaan Gentleman oo iyagana dalka dibadiisa ka maqnaa soo dhaweyntan ayaa waxaa soo qaban qaabiyeen dhammaan macallimiinta ciyaartoyda iyo sidoo kale dadka taageera arrimaha isboortiga oo qayb ay markaasi ka yihiin sidoo kale waxay qayb ka ahaayeen oo ay tacsi guud ugu tageen Allah u naxariistay Cabdullaahi Kuusow oo horey ugu tirsanaa xiriirka tenniska sidoo kale qaybo badanna ka soo qaatay horumarinta ciyaaraha kala duwan sidoo kale mas'uuliyiin badan ayuuna markaasi isboortiga uu la soo shaqeeyay waxayna alla ugu baryayaan in alla subxaanahu wa tacaala jannada firdowso ka waraabiyaan xiriirka tenniska dheer ayaa markaa hadda bilaabaya qorshaha iyo tartamada dhawaan la qaban doono iyagoona isku diyaarinaya ciyaartoyda heerka kala duwan tenniska